وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. قصة طريفة أذو قيمة بدن جماعة من السلف الشيغان شعبي با كمدا أبو نعيم في الحلية كل شيء وقصة حكمة أو لغلا بحايو هذا مرتوي هذا البلغلا بحايو شعبي وحول وحال الشيغي شعبي ومن أمن التابعين وذكرن ريسان نيمبا وحو ugaadhsaday qabsaday shimbirta la yiraahdo qumburowga qumburo ma taqaanaan oo qooleydu ku dir yahay laakiin uu ka yar yahay qooleyda dirkeeda laakiin uu ka yar qumburow baa la yiraahdaa shimbirtaasuu qabsaday nin markuu dhab siiyay yay la hadasho waxay tiri niyow hay dilin bay tiri haddaadan i dilin saddex xikmo ku anfacdaan kuu sheegay bay tiri حلم حوضا لهذا وحيد أنا هذا الدشود عنته هلو يا تشيل هذا هلي بقبته حبك هقتر ما يجي قاعد هاي سنة هرتا كاها قبتر ما هي واحد يدي شاب هرتا بلاش أيضا سيدات هذا أنا صدق حكمان كوشيجا هي نادي الدين هذا جو أنصت ويا هي بوري وحيد الحكمة الكوبات مركز يسيد يسان كوشيجا حكمة الله بعدنا markaan geedka fuulaan ku sheegaya midda saddexaadna qowga dheer markaan dhakada kaga istaago yaa ku sheegaya culimadu hadal bay kula baxayaan waana xaqiiqo jirta marka bini aadamka la fiiriyo barkaasuu sii daayay waxay tiri xikmada koowaad waxaa weeye laa talhafanna calaa maa faataka cafwan yaana khaldan waxay tiri intaadan isii daynin horta mid baan kuu sheegayaan wax la'aan aan kaa tegin mid baan kuu sheegay markaad isii daysana oon geedka fulana mid baan kuu sheegay markaan qowga fulana mid baan kuu sheegay ta koowaad waxaa weeye wax ku dhaafay bay tiri ha ka qoomamayn sidaaduba wax ku dhaafay shalaytiyo qoomayn kugu reebin dhiig karnayso kugu ridin waa laga socdaa way ku martitaa ha ka daba tag waa gartay buur geedka markay fuush yaa wuxuu yiri tiisad labaad xigmadii labaad ee ballan qaaday soo daa وحيث لا تصدقن ما لا يكون أنه يكون هالرمين بيتي وحان دعين إنه دعي دونه وحان هذا أذى رجل أذن هبين إنه دعي دونه آمين كذب مركي جيت كيف هو شيء بيلا هذا شو وحيد تري دقن باطاي تري محايا لي أيام درون نصيب حنا واتاي تري haddaad i qabsan lahayd oo gowrici lahayd meesha dhuuntayda ee gulgulada ama xawsal la yiraahdo waxa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto 20 diinaar oo 20 mithqaal culays ku dhaya 20 ku dar 40 diinaar oo dahab ah waa taqriiban 170 gram oo dahab ah 170 gram oo dahab gabdhaha lagu guursada hadda soo ma qaybna meer baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tidna ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo dollar yaad isii days aad buu ninku u shalaytoodo waa qoomamay markaasuu ku yidhi waa yahay markuu ilmada iska tiray buu inta gartay bal tii u dambeysay ii ballan qaaday sheedaan baa tahay tii u dambeysay bal sheeg xikmadii u dambeysay markaas waxay ku jiri seen xikmadii u dambeysay saddexaad ku ugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan ku soo jiri wax ku dhaafay ha ka shalaytoon waxaadan hubinna
hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheegaa ood hilmaantay midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tir doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqon tahay waxaa ku tusaysay tidhi aniga qumburow baa la yidhaahdaa waxay tihi baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo luddiga dhacaan waxaan leeday laysku daro culayskaygu 20 midqaal ma gaadhay tidhi waad og tahay waxaanan kuu sheegay meeshaan inay ku jirto 40 midqaal seed horta u rumaysay tir dabaalnimadkaada seed u rumaysay ayada dhan baan dhannayn waa waxaan 50 garaam ka badnayn oo ibaad aragtay intay leegta waxay tiri laf iyo lud iyo tim iyo baalke wax dhahday la isku daro ma dhanni wixii aan kuu sheegay nuski xataa ma dhanni waana rumaysay adiga oo hayay ilmada duuga hayay lacag bay dhaaftay dollar bay dhaaftay caku farta qaniisanta marka waxay culimadu midaalka u keenaan waa misaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay ka badbaadaysaa hunguri la'aantu ama iimaan la'aantu waxay kugu ridaa balaayo ku dhex firs aqoon darro way kugu abuuraysaa inaad been xataa rumayso been aad rumayso 40 midqaal oo dahaba xagee laga shimbirta wada garta xadeyd xagee tahay mid kale qooleydu meesha xawaa kuma qaadaba midda waaweyn qayb laakiin qumburoogu wuu baahli yaro halkan ka gaaban way qoolida nuskeeda ma qaadi kara waxaas oo dhan wuuna aaminay muhiimadu marka waxa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo bil raadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidin ku ridin meela daran sayidka qoli u durxulayaan qaraabana markaas wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaytaane reebelki sheegi maayo wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaytaan hungurigu wuxuu ka tuuri dakhal sheeb qawiyu ka tuuri laago bad qolyo Soomaalida arintay dhandhan baan raadinayna iyo miir kuli baan raadinayna waagi dambe iyagoo waa naloo keeno quraan aanu saaray Soomaalida arag waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay